cashirkeeni koowaad waxaynu kusoo qaadanay terminology-gu wuxuu ahaa iyo definition-kiisii iyo qeexitaankiisii oo dhan. cashirkeenan labaad waxaynu ku qaadanaynaa wanigii word structure-kii soo qaybinay. saddex qaybood baynu soo qaybinay, mid afraadna way ku darnay, laakiin saddex qaybood baa ugu muhiimsanaa. ta ugu horeyso ah prefix-ka wuxuu ahaa prefix-ku, rootski wuxuu ahaa iyo suffix-ku wuxuu ahaa. marka prefix-kaynu kusoo guudi jirno anigii niri xabad xabad baynu qaadanaynaa. iminka waxaynu ku guudi jirnaa weli cashirkeena labaad ilaa xataa prefix-ka, oo marka prefix-kii baynu baran doonaa oo numerical marka loo tirinaya terminology-ga caafimaadka aasan number ahaan oo 1 2 3diisa 1 2 3 4 5 6 marka medical ahaan la joogo kowdi maxay noqonaysaa, labadu maxay noqonaysaa, tuugu muxuu noqonayaa. waaya iyo speedka waxa sheegi karaa intaan speedka xawaaraha waxa sheegi karaa ama kelmadaha sheegaya inuu halka ku baranay insha Allah taala. prefix-ka sheegaya nabarada iyo speedka waliba aynu ka horeyno qaybtan hore ee numerical prefix-ka tir ahaan ku sheegaya. tusaale ahaan mono waxay noqotaa single, monozygote, mono waa mid, monographida waa mid weey, waa mid monozygote, monographid. mono waxay sheegtaa mono kelmadda ugu horeysa prefix-ka horgalahii waxay sheegtaa single, singular bay sheegtaa ama single. way dio maxay sheegtaa dio waxa diapeptide, dio waxay sheegtaa labay sheegtaa waa dhaman. triphosphate waxay sheegaa 3 saddex bay sheegaan. quad ama quadruple waxay sheegtaan 4 buu sheegaa. hataa quad aragto kelmada ay u horeyso iminka bay iska qadarayeen inay tahay maxay 4. poly waa wax ka badan muxuu haayay intii loogu talagalay. poly waa wax badan. oliguria kaadidiisa yar, oliguria kaadida yar ama kaadida bisodin waa few, very little weeyaan. oligo hadaad maqasho oliguria kaadida yar, oliguhydro jidka yani fluidskiisa iyo biyihiisa yar. way speedka prefix-ka horgalaha sheegaya xawaaraha. hyper waa fast, waa wax sare, elevate kacsan, horeynu soo yar dhigan, laakiin iminkan waxay speed buu sheegay kan. hypo waa slow, hypotension ayaa waa dhiigkarkiisa hooseeya. hypertension waxa sareeya dhiigkarkiisa. hyper kun meelood baan isticmaalkaa. hyperthermia heerkulkiisa sareeya, hypothermia hoos buu u dhacsan yahay heerkulkiisu. way touch waa maxay? touch waa rapidly si degdeg ah wadnuhu garaacay. haddaynu iminka leenahay tachycardia ayaynu odhan. hadduu leenahay wadnihiisu uu garaaciisu uu hooseeya bradycardia ayaynu odhanayna. oo markaa waxaa tilmaamaya kelmadan hore ayaa tilmaamaysa speedka kolba xawaaraha maxay uu ay leedahay. markaa waa taa ka horeysa weey. way haddii intaa aynu barano waxaynu bal u gudbi doonaa qaybaha labaad ee ku xigay slide-keenan. way prefix-ka location-ka sheegaya meelaha ama goobaha iyo movement-ga socod. yani haddii la leeyahay waxaas hore u socdaan ama waxaas way ka gudbayaan, way kelmado sheegaya waa in prefix ay ku jiraan terminology-geena. way kuwan ugu horeysiino in arkaysaan ba filaya. biri cardium, ibi iyo biri haddaad maqasho waa aroon, waa xagga sare. endoethra haddaad maqashaan waa waxa hoose, waa waxa location buu inoo sheegay, waa inside, waa inner. extra waxay sheegayaan outside, dibadda. intra between waa inta u dhaxaysa. intra between, interoperative waxay sheegayaan wax dhexe. trans waa wax laga dhex gudbayo, trans waa across. diabear waxay sheegayaan waxaas inuu complete yahay, complete. ama bear truth oo wax la dhex marayo. waaye para near waa meel u dhow. parasympathetic ama paro yani waa nearby u dhow. para joogto
haddaad maqasho waa u dhow meesha ku xigta. Jigta waa maxay? Jigta waxa weeyaan waa next beside. Jigta aorta haddii nacamada aortaha ku xiga. Jigta renal waa kelida waxa ku xiga tusaale waxaasaa lasii raacinaya marka waa beside ka dambeeya weeyaan marka way prefixka movementka sheega waxa weeye up away ka laga yimi marka toward ku soco add haddaad aragto waa toward above xagga sare. This to separate weeyaan inay waxaasi kala go'maan. Displacement dissection tusaale in wax la kala jaro laba qaybood loo jaro waa to separate laba in loo kala qaybiyo marka waa way aan ku sii soconno slaydkeena xiga ee prefixka sheegaya wali prefixki waa wali ku jirnaa wali kama inaan bixin rootki meynaan way prefixku oo ka horgalaha ah prefixka sheegaya colorska haddaan colors maqashaan arday coloradu intan bay yihiin waan ii calaamadiyay luka haddaan maqasho waa white leukocytes unugyada cadcad erythro haddaan maqasho waa red waa casaanka erythrocyte unugyada cascas Zino waa blue cyanosis tusaalahan cyanosis waxa weeyaan maxay waa abnormal ku dhacaya jirka oo midabkiisu noqonayo blue gray ama blue noqonayo. Color waxa weeyaan waa green chloroplast waan horey soo dhiganay xiriiriisa ka dariga chloroplast yani wuxuu sheegay waxaas inuu green yahay. Melanocytes waa black ama melan waxa weeyaan sheegayaan inay black tahay waxaas. Violet yellow valve waa yellow waxaas haddaad ku aragto valve waxaas waa yellow waayahay aan sii socdo bal aanu eegno tusaalahan prefixka inta badan horgala ee suffixka ay anatomy ahaan loo isticmaalo. Histo tusaalahan histo waa tissue marka haddii la yiraahdo barashada tissue maxaa la odhanayaa histology waa barashada la baranayo histology. Histo macnaheedu waa tissue in ku xigtaan. Hydro waa maxay? Hydro waa sweetening waa dhidid macnaha. Hepto waxay related to touch waxay la xiriirtaa hepto waxay la xiriirtaa waxaas wax la taabanaya tusaale. Heat waxay waa breathing neefsasho way proprio pressure to touch in xoog waxa marka loo taabsado. Said sanahan bactericidal waa killing seed ama pesticide waxa weeyaan waa killing ama waa lit waa stone lit waxa uu caansan nephrititis marka stone ka laga helo maxay kelida lit waxa nephrititis baa la yiraahdaa way year old age weeyaan geriatric barashadiisa dadka sida loo xanaanay geriatric baa la yiraahdaa marka gero waxa old age waa dad weyn ama qof weyn. Receptor weeyaan ama sensor waa dareen ama dareene